qofka caalimka ah waxaa laga dooni inuusan siyaasadda uusan ku dhex milmin, inuu iska ilaaliyo inuu diinta iyo xaqa uu dhaafsado laaluush iyo calooshiisa inuu dhaafsado wax caloosha uu ku shubto oo musqul la geynayo waa inuusan diintiisa ku iibsan. maantana waxaanu arkaynaa walaalayaal fataawaadku inay badan yihiin, madaxda iyo siyaasiyiinta iftoonayo sida ay jecel yihiin loo iftoonayo, iyadoo qofka caalimka ahi markaa culimmada ka mid ah danta uu ka leeyahay ee masalada markuu u iftoonayo ay tahay wuxuu calooshiisa ku shubto uu doonayo oon dhaafsiisnayn waxa caloosha lagu shubanayo in iyagoo qarmoon musqusha la geeyo mooye. waxyaalahaas oo kale in diintii lagu iibsado waxay ku tahay qofka magac xumo iyo khiyaano diineed iyo isagoo naftiisii u soo jiiday cadaab iyo ceeb naftiisii u soo jiiday ayay taasi ay ku tahay. sidaas awgeed haddii maaragtay dadka culimmada ah waxaa la doonayaa in ay ku daydaan dadkan rabbaaniyiinta ah ee sidaas mowqifka adag uga istaagay maraaxisha adag ee dowladihii markaa ay la noolaayeen ay marayeen. walow xataa mas'alada xaqa weligaa baadil gacantaada ha ku saxiixin, mowqif ka istaag baadilka casrigaaga dhacaya, mar walbana ku kalsoonow rabbigii ku abuurtay. maalin ayaad dhiman, mar walbaba maalinta aad dhimanayso ku dhimo adigoo waddankaaga aan khiyaanin, diintaada aadan khiyaanin, shacabkaaga aadan khiyaanin. dhimo kolley hal maalin unbaad dhimanaysay mar walbaba, sida uu leeyahay ashaaciru alxakiim abu طayib almutanabbi wuxuu gabaygiisa uu ku yidhi waman lam yamut bisayfi maata bigayrihi tacadadat اlasbaabu wاlmowtu waaxidu. wuxuu yidhi qofkii aan seef u dhiman wax kaluu u dhiman doona, ama kaneecaad dilaysa ama maaragtaahay cudur kalaad dilaya, asbaabtaa fara badan uu yidhi wاlmowtu waaxidu, dhimashadu hal mid unbay isugu imanaysaa, hebel waa dhintay unbay isugu iman. marka casharka aanu ka qaadanayno taariikhda alimaamu nawowi raximahu llahu tacaala waxaa ka mid ah in aan diinta la dhaafsan adduunyada rakhiiska ah ayaan ka qaadanaa, sida imaamu nawowi raximahu llahu tacaala mowqifka baadilka uu uga qaatay jaanibka xaqana uu ayiday alimaamu nawowi raximahu llahu tacaala.